maantana farxaan may dileen farac ma reebaane fariid iyo ninkii fiican bay fokiska saaraane dhulka faga fiid miina duug fulay dagaalkii dheh foolka fool markay tahay kala firxada duulkan furuqaa dheh fayrus aan tallaal fiican helin fiixda nugu taal dheh fadwo beena ficilada guracan fawdada iyo dhiigga muslim feega oo kugu dhex fida fiirsa waa ceebe hubka faga oo la dhaca faalka iyo suuga فرحت كودا يا لغا هارينا ميل فوق نغا geeye sigina dira maxay tiidin habarkii maxay tiidin oo furunta nilgeenay geesigina gadaal waa u dhimi weeseen tan maxaan tan waxa dhimasha ka xigtaan inay disina ka xigtay wallahi ilaa imaanta oo geesigaygu waa la biyay wallahi maanta inteeda mana cadda mana madooba laakiin habarkii inka isbaabiseen ama hanila shirqaalo ama hanila dilo inka isku talagashay maanta gees haddana waxa iga xun maanta wiilka samadi ahay hooyis kaligeeda wiilka qabay kawaran marka geesigiina haddii saan loo baabinayo ajijiftiin afari laba maalin aa kusoo koobtiin ina oysiga broortiglin yani igu talagalay habarkii awaana tiidin aniga maanta magacin inaan dhiiga diyaar u ahay geesigayga haddii la dilay walaalkay waa ku salaamaya dhiigayga boqolkoo malaaya هيا باي لا سمر إيمان الله نقصيه سمر إيمان الله نقصيه قف استوى دمنا يا لكن ضيعتانك هي اللجوية هي مارتي هي وتبتي يريسو اللي قد لي قوم على اللي قد لي ترى قلال اللي قد لي وعلى اللي قد لي بالكلا يريسو قبل لي أو دلي بالكلا يراهذا إلمن اللي قد لي وإحنا لور ريبي مثل تانكور وإحنا لور ريبي فين عندك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سوروا أبو أشرب قف البصومالي وحي أقوم ديس إني دشو قف أي ريبي سمالهن ماذا حرا نقصوا بابادي ضد حرا نقصوا باباي وين أنت قيلاد يبلغ dadku ha iska daayaan ha u duceeyaan geesi kasta geesi ma dhamaan habargidi geesi kama dhamaanin wiil Soomaaliyeed oo ahay geesiyaashu waa joog geesigu 4 iyo 1 ma ahan ninka maanta furunta shabaab ku dhinto waa nin geesi ah waa nin ay taariikhda xusi doonto shabaabna nin kasta dili doonta nin ay gooni u deynaysa malahan adduunka nin asoo shaah cabaayo ama hotel dhax fadhi intuu dhimalahay wiil walbo dagaalkaas ku dhimo walaalkeena wuu shahiiday maxaa dhahaa ilaa asxaabtii ala shahiiday nabi alayhi salaatu wasalaam maalintii uu dagaalka u galay waxa dhintay maxaa dhahaa xamso uu dadku ugu jeclaaya dhintay nin walbo geesiya dhimanayo ninka ragaana markuu dagaal ka aado qasbiin waxa ah ama inuu dhinto ama inuu wax soo dilo dhimashada waa xaq walaalkeena uu u baxay inuu wadankiisa u dhinto wuuna shahiiday ilaahay waxaan ka baryeynaa inuu jannada geeyo oo inta iyo balowga hal daayo habargiri geesi kama dhawaan geesiyaashu waa joogan dadka Soomaalida waa dagaaltamayaan geesinimadu waa joogtaa dagaalka hala taageero faraaruqa iyo waxa laga sheekeena iyo hebela ka dambeeyay hal jooji meeshuu ku dhinto waa loo jeeda waa caloosha shabaab waa dagaalka shabaabna inay waxba mu aasto iyo inay disho waxa ka go'an waa waxa umada ayada leena waa ayaga yaa madaxda ciidamada yaa tafaraaruq la gelinin balaayada la wadana hala joojiyo dagaal lagu jiraa horta walaal dhageyso dawladda hadda Soomaaliya waxa ka hawiye madaxweyne waxa ka anaba sugida hawiye gaari aan xabada karin walaalkay maanta in loo quuri waayo furuntana la geeyay xilka uu haayana xil gobolka Banaadir oo dhan uu haayay in gaari cabdi bilaa daaqada laga saaray miyaa maanta daboolaysa walaalay horta farxaan wax loo diiday in dadka la siinayo in farxaan wax loo diiday dadka la siinayo u maleeymaayo dawladuna u dagaal baxay dagaalkana asaga u baxay inuu soo shiido hadduu sa dagaalka rabin walaalkeen wuxuu fadhiisan lahaa maxaa la dhahay sida madaxda oo hadda Soomaaliya nimanka madaxda isku sheegay ma geesi abo horta dad badan la weynaa dad badan naga dhimanay kaligiis ma ahan dagaalka shabaab lagu jiro madax badan la weynaa dad badan dhimanay waxa easy ma ahan waa dagaal lagu baa doono geesiyana ku dhimo doono fulay oo dhan waa iska hari doona aniga walaalkay maanta meesha ku dhintay waqtigiisa galay cidna ma celi karto geesinimo loo baahay waxa la yiri maxaa la geesinimo waa alaka idageysa abo waan ka soo baxaya aniga waxa
waxaan rabaa waa dhammeena abaa waan kaaga baxayaa waxaan rabaa caloosha in la wada xirto beerkaana wada xanuunayo waa ognahay qalbiga isku keena dhacsan naxdinta heeso aan u duceyna bas laakiin haddaa calaa cashiin cali dheere iyo shabaabaa garab siinaysiin mataqaanaa waxaad tusaysiin hadalka u jeeda nimankaa ka hadlaysa aniga barnaamijkayga ma ahan dowladda Soomaaliya madaxweynaha baarlamaanka gudoomiyaha wasaaraha ninka la yiraahdo nabad sugidda maanta maalin wax la dhaliilo ma ahan walaalkeen ayagaa dilay maanta maalin wax la dhaliilo shahiida lagu jiraa abo idhageyso maxay dileen shahiida lagu jiraa abo maanta maalin wax la dhaliilo ma ahan nimankan eeyaha aan farta ku wada fiiqno wixii naga dhintana aan u duceeyo waan ka baxaya dadkan jaanisiisay waxaa dadaboolaysa aniga maanta halkan fariin waxaa u marinaa wiilasha habar gudur oo dhan furunta iskaga soo baxaan al-shabaab Soomaali waa loo wada siman yahay ha soo galaan dagaalka Soomaali oo dhan abgaal ha soo galaan maxaa habar gudur looga dhigayaa ninka ugu horeeyo aqli ma qabaan miya inta gaaruxuna Cabdibilaa oo ever inta loo dhiibo iyo qori aan xabad ka dhacaynin marka ayaga furunta u hormarayaan abgaalka xagay ka baxeen daaroodka dabaqyada ku jira may soo baxaan Soomaali waa loo sameeyay nin kasta oo habar gudur ee gadaal ha soo maro iyo saxabada asaga ku hor dhicin wax geesinimo liiraa way dhamaatay hal iska wada celiyo nimanka maana wiya xawaaliya habar gudur السلام عليكم قرعلو soo dhawaad السلام عليكم وعليكم توربين wadada ka horeey mud gal abay ku soco saar ku soco walaashay السلام عليكم يا إنسان حوالي أوي وياهي gadaal yaa loo kala gelay hadalka hal iskala siidada hoos jooga sahra ku soconaysa waa ku xigtaa sahra ku soco soo koob abay dad badan hoos fadhiya hadalku waa ku taragal waaye dilka farxaan ku taragal waaye gaari water proof loo gadi waaye asaga furunta la iskaga hormariyay nimanka abgaal ha soo baxaan maxay u seexanayaan midku u wada yaala al-shabaab dadka dhan way wada dhigtay hal qof may dhibin daarooda dhigtay oo hawiye dhigtay oo Soomaalidana dhigtay maan in habar gudur meel walba lagu barooweeyo ayagana daqamo ma ahan mise aadin dagaal dambe ani wiilasha walaalahay maanta intaasoo siinaya farxaanna jirkaygan ka dareema habar walba oo wiil dhashana way dareemay xanuunka amaanta dareemayo waana ka baxay ayo walaasheen ku soco gabadha kale ku soco baa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركور وعيد السلام قرعيل أبوي الله يا رحمة راحمين هرت مركورة طول على إلهي سبحانه وتعالى قبر جيسا واسعية كتاب كيسا نمدك الله كسيو لما أنتينو نقر لنتي ويل صوماليات وايو dhibka mataqaanaa idinka aad dareemaysaan waa idinla dareemaynaa geerida iyo xanuunka farxaan ma ahan qof qabiil farxaan wuxuu ahaa qof qaran ah dowladda Soomaaliya ummadda Soomaaliyeed nimay fiirsanayso ahaa nin intaasoo hooyo ah gurigeeda joogto ee ku hurdi jirto ahaa alla ka soke geesiyo ahaa dayacana wuxuu ka yimid dhanka dowladda waa aniga saan dhaliisha saaraayo waayo haddayse dowladda mataqaanaa aqoon-yahanka ama mataqaanaa ninka geesiga ama taliyayaasha ama amanduulayaasha aysa dowladda ka fikirin yaa kaloo ka fikiraya xaqiiqda markii laga hadlo ilmaada reer walaalo gurceel adna waxaan kaa codsanayaa ummadda Soomaaliyeed meesha joogta walaalaheen waxaan ka codsanayaa dhammaantood in bahasha qabiilka laga daayo mataqaanaa sida saxda walaalkeen ku wada lagu wado aan dadka la kala qaadqaadin Soomaali weyn buu wiilkaas ka dhintay aan wada duceyno wallaahi bilaahi tallaahi farxaan wiil Soomaaliyeed waa maanta inaan mataqaanaa aan isku qabiil ahayn isaan mataqaanaa iskuna dhaweyn laakiin wiil Soomaaliyeed waayo waan ka danqaday saan walaalkay uga danqanayo kala uga danqanaya waa geesi Soomaaliyeed buu ahaa geesi ummadda Soomaaliyeed ka geeriyooday buu ahaa maanta inta dhiban mataqaanaa ooyeysa ama inta mataqaanaa dhibka la dareemayso Soomaali weyn oo dhan waa jireer iyo jilaac buu ka wada dhintay ninkaas garab Soomaaliyeed oo baxay waa geesi Soomaaliyeed oo baxay waa dayaca maanta farxaan ku baxayna dowladda xigtay ka timid ajirsiisina way timid qofna jaacadiisa ma dhaafayso hana loo duceeyo familkana dhammaanteen inuu wada duceeyno ilaahay qalbigooda u qaboojiyo badal khayr qabana farxaan ka dambeeyno ilaahay ina siiyo insha Allah bidna ilaahay kale waan idin salaamaya assalaamu calaykum waa maasanta qofka kale ugaasoo ku soco adigana ugaasoo sida loo kala horeeyaan ugaasoo ku soco abay توربينو ودي سو بخي وايان كسو توربينو كسو السلام عليكم صاحب وقف مركود عليكم السلام walaalkay كسو مركود علينا إن لا وين راجعون نكنا كم بحين Soomaaliya dhan ku baxay nin adag baa baxay ninkan naabacooda leena xadiisana ka waraabiyay walaalkii faataxado mara nin dayacan dawladdu ku yimi anigu waxaan aaminsanahay qof walba wuxuu ka hadlay opinionkiisa waxaan aaminsanahay
ninkaas inay dowladdu dishay anigu I believe that sababtaa ninnan oo janana oo 5,000 oo askari hogaaminaya see loo saaraa gaari aan bullet proof ahayn askartii isaga la socotay baa gaariga ninka wuxuu ku dhisay midda kale 200 oo laankursil baa meesha marayay see gaarigiisa kali miinad ula kacday gurceelo anigu waxaan ahaan jiray dambi baare waxaan saaxiib waxa weeye 300 oo laankursil baa marayay 200 oo taangi baa marayay sidee gaariga jananka ilaahay naxariistiisa ka waraabiye sidee gaariga jananka kaliya goobta uu marayay daqiiqada uu marayay miinad ula kacday su'aasha la isweydiinaya waa tan uu dhahay la iska tir gaariga ka dambeeyay lama keen oo kii ka horeeyay lama keen oo kii dhinac soo lama keen say gaariga jananka ula dhacday waxa weeye inside job waa inside job su'aasha la isweydiinaya waxay tahay walaal gurceelow iyo cidna la cajifeen cidna lacayn 300 oo gaari baa marayay gaariga jananku saarnaa taliyaha ciidanku saarnaa hogaamiyaha guud saarnaa ilaa u naxariistay say ula kacday 2 miino say ula kacday su'aashu waa taas waxa weeye inside job kuwa la socdaan al-shabaab baan gaari ka horeeyay ka dambeeyay al-shabaab buha waxaan telefoonada la isku xiray gaariga wax loogu xiray waa la ogaa arrinka yaan laga aamusin gaarigiisii bullet proofka waa laga dhigay waxa la yiri gaariga bullet proofkaas ka dhig gaariga 10kaas kala saaranta Cabdibilaha fuul wax la soo daaqada laga saaray bis war nin dhan oo tagada aragti haayay oo inta tagow soo qabtay dawladii maxamed cabdullaahi farmaajo gaari bullet proof oo ninkan wada jiray hadduu luuq kasta aadaan ku marka sheekadan waa sheeko laga soo shaqeeyay aan dib ugu laabano anigu su'aasha kaliya qaba dadkana weydiinayso gawaarida maray waxaan 184 gaari 184 gaari waan ku soo dhigi doonaa say gaariga jananka kaliya min 4 min oo la kaceen su'aasha la weydiinayo waa taa su'aal kale ma banaana anigu dhihimayna hawiyaa dilay anigu dhihimayno daarad baa dilay anigu cid ma taqaana dambi saarmayno laakiin in waxaan la isla ogaa uma nooc cad haddaysan noo cadayn saaxiib ninkan jananka allah u naxariisto say gaarigiisa kaliya miinad ula kacday su'aashu waa taas 180 gaari see looga soo dhex saaray asalaamu calaykum waan ka baxay fikrad fiican noo sheegtay waxa xaqiiqada jiraana ka hadashay ilaahay khayr ha ku siiyo walaalkeena allah u naxariisto soo dhawaad ugaas soo dhawaad muuti ka soo bax walaalkeen عليكم والله ku soo caabo ku soo adigana fikradaada ka dhiiba dad badan hoos fadhiya saa u soo qabano aan xog aruurinaa wadnaa ku socda ku soo والله أنا wax yar oo kooban aan ka leeyahay ma fahanto walaalkeen Allah ha u naxariisto horto wuxuu ka dhintay Soomaaliya oo dhan oo ka dhintay Allah ha u naxariisto sabri iimaan Allah naga wado haddana mid kale aan ku sheegay waxay taabaanay raali ahaanteed waxaan aaminsanahay walaalkay waxay islahaayeen ninkan soo shacabkiisa dadku jecel yihiin shaqadiisa markii la dareemay kabacdi xataa hadda hotel ayaad iyo qaraxi markuu dhacay iyo markuu asiga hore galay shaqada uu qabtay iyo kabacdi markii la dhahay ciidamada kale ay soo galeen oo looga sheekeeyay sidoo asiga shaqada uu qabtay markuu meesha ku jiro dadka samoorada biliis shaashada garaaca suqul kor uu shaashada noo garaacin koraaliya ala yarta oo hotel jiray soo wax uu qabtay markii laga sheegay idaacadaha marka waxa aaminsanahay aniga ninkan wuxuu ku maqan yahay gacan dawlad gacan kale kuma maqno walaalkeen hadalkaada dhigaal corona wiil oo YouTube Facebook caan ka ah oo la yiraahdo Cabdi Dhaanto ayaa wuxuu soo qoray hadda ko maalin aan ku arkay aan dhaweyn farxaan qaroole wuxuu aaday Faransiiska iska dhiibay dhimashadii ku xigta meesha waxba qaldan Allah yarxamu horto walaalkeen Allah u naxariisto kowda mid kalena waxa waaye hadartan Soomaaliya intaan meeshan ku wada jirto oo maanta dhan hadaan qaylino oo saas wax ay faa'iido soo kordhay male qof kasta oo wadanka wax u qaba daacad wax wadanku ah waa la diloyaa ma fahamteen soo wiilkan wuxuu ka dhintay family ka dhintay magaca wadan mudgal walaal waa laga horeeyaa hadaada mudgaleen waa iska degaysaa walaalay macnaha dadka hadalka si ku soo braad elman gabartow dhalay waa aragtay meesha lagu dhex dilay oo hadda lagu dilay galaala lagu dilay goomaala lagu dilay hal qof oo wax qaba kara in la reebo lama rabo laakiin wiilkan oo tagada aragti haysay gaari bamproof oo xabad aan karin sidee loogu dhiibi waayay isweydii ina adeer macaan waxaa aaminsanaa qorshe la soo diyaariyo wahay ma fahamtay أنا waxaa aaminsanaa qorshe la soo diyaariyo ahay marka Soomaalideenan inta meesha ku jirto wiilku waxa laga yaabaa inuu ilmo lahay inuu hooyadiis inaan saas xataa dadkiisa alla falxa laga warqabo yaa meesha lagu ilaabin familkiisa hal caawiyo muhiimadda halaas waay maantaasi wuu baxay familkiisa ilmihiisa wixiisa dhan laga warqabo halaas waa muhiimadda ma sha Allah brother khayr Allah ku siiyo ku socdo wiilka London ku shaashada garaac gurceel oo ku soo 147 gaari way gawaaridu
kiisaa lagala dhex baxay waan kuu soo dhigay 147 gaari see ku dhici kartaa su-aashaas dadka weydii saaxib waa fikrad aad ku soo kordhisay see ku dhici kartaa waxaa السلام عليكم. السلام عليكم walaal ku soco alaa u naxariisto horta walaalkeen alaa u naxariisto walaalkeen ninkan yarkan tarabiin wuxuu sheegaan ku raacsanays waana xaqiiq say gaariga ka horeeya wax lama dhicin kan ka dambeeya asiga keliya waa wax loogu talagalay dowlado shisheeye ka dambeeyaan ninkaana wax dayacay dowladda dayacday asoo la awoodo bulletproof in la siiyo walaalkay la siiyo ayaa waxaa la saaray gaari cabdibilaa waa qorsho laga wala degay oo dowlad shisheeye ay wataan ninkan ummadda badbaadinaya iyo shaqadiisa iyo xifradiisa la nacay iyo daacadnimadiisa la nacay lagu dilay yaa dadow waxaana waa wax la dilayo waa nimanka dhalinyarada Soomaaliyeed la ugaarsanaa ninkii garasho leh oo garasho dheer leh waa la dilooyaa ninkii wax garto waana laga dilooyaa elmana gabarta elmana naga maqan gabar waraa wax meeqa maqan oo aqoon leh waraa elmana macna aan loo dilay oo gabartiisa macna aan loo dilay yariisu waa la dilay goob loo dilay galaala loo dilay hal qof galaala macna aan loo dilay waxaan waa wax socdo gabartii naaleey hebirtaa naaleey macna aan loo dilay war waxaan aan ka kacno waa dadkan dadna gumaadayo waaye aan wali istaagno haddaan Soomaali nahay kan Yurub joogo kan Mareykan joogo kan Afrika joogo hala kaco qowmiyad walba ayadaa dhibaatada iska kor qaado aan dhibka iska kor qaadno dowlad wax ay ku qabanayso mala waxa ku kumaadayo waa ayaga dowladda shisheeye u shaqeeyaan waxa la dilayo waa walaalkay waxa wax dilayna waa walaalka waxaan waa wax qorsheysan hala kaco Soomaaliyeed ilaahay aan ka baqan dhulkeena aan xureysano haddii kale wallahi gurtustaan aan noqonaysiin gurtustaan qaarad walba aqaa ka soo dhaheena aan kacno waxa la gumaadayo waa anaga aniga kookaay oo gurceel laba ka yahay adinkan waa waxa la gumaadayo haddaan maanta baaxno madaxana lagu dhufanaa because garashadaada dheer nin garashadiisa dheer lama rabo Soomaali maanta runta dii laga hadlo intaas alaana u naxariisto hal la duceeyo walaal in reerkiisana aan ka warqabno yaa la dayicin wiilka madiyo u ahay yaa la dayicin Soomaali oo dhan ka tagay ka khayr Allah ku sii fikradaas saliimka ah waa wax meesha ku jira dawladda bahashan ku lugta leh waayo salaam walaal yaay nabasugida iyo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha waxa dhan yaani kan aristo walaalkeen maxamed cabdullaahi farmaajo markuu xilka uu haayo xilka u dhiibay gaariyan xabada karin oo watay xilka markii uu maxamed cabdullaahi farmaajo ka degana gaarigi waa laga xareeyay baraada waa saa sheegto qof fiira leh qof wadankiisa dalkiisa dhalinyarada wax barata jaamacadaha ka baxeen dhaqaatiirta qof uusan la kulmay male habeen iyo maalin macaan rabadaanka laamigu taagnaa baraada waa la dayacay dawladda dayacday ku dirso in Soomaaliya inay xasilonaato nabad noqoto al-shabaab la dhameeyo ninkii waxaan dhameyn lahaa ee waxaan soo afjari lahaa waa loogu talagalay anigu su'aalaha meeshan kaas hadda ku soo dhigay mid kashada garaac 147 gaar su'aasha gudceedu ka tagin tay gaarigiisa looga soo dhex baxay su'aasha ummadda weydii waa su'aal cajiib waa su'aal mudan in la isweydiiyo mid kale in al-shabaab wadada lama ogola ninkii waxaan soo afjari lahaa waxa la yidhi waa isaga gaariga ka xareeya kadib markuu halkaa marayo wakaa hadduu ku beegeen ku qarxiya waa wax loogu talagalay marka waxaan waa fiilo dheer inaanu ka hadalno oo qaadaa dhigno weeye shaashada garaaca bliis shaashada aqliga saliimka hala gaarsiiyo tawrabiin waxa sheegaysa waan ogahay way iga buuxaan walaalkeen dayacay daawa wiilkan kala xumka ilaahay ha u naxariisto professor Mustafa Saaran soo qabo anigu hoos baan ku yar fadhiya Mustafa Areer soo qabo hayo walaalkay oo maas yarka kale maxamed ayrow soo dhawaad walaalo ku soco walaal ku soco عندي ولا القالون ما انت انت ماشي داونيسو